السلام عليكم سودو هذا أصحابتي دقالقة qaar badan oo kamid ah haweenka Afghanistan oo ku fikraya inay istilaan oo nafta ay isdhaafiyaan اما امروز خیلی جگر خودم چی بگویم چیزی گفتن نمیتونم haddaba maxay tahay sababta haweenkaas isku dilayaan ay nafta isku dhaafinayaan haddaba haweenkaas ayaa la kulmay niyad jab iyo walaac waxaana noqday rajo la'aan haddaba su'aashaad isweydiinaysa waxay tahay gabdhaha daada yar maxay u doonayaan inay istilaan bishii December ee sanadkii hore dawladda Taliban ayaa gabdhaha u diiday inay jaamacadaha dhigtaan gabdhihii ayaa jaamacadaha ka hor istaageen haddaba gabdhihii daada yaraa ee mustaqbalka lahaa waxay la kulmeen niyad jab iyo walaac waxaanay noqdeen rajo la'aan oo nolosha ay ka quusteen waxaana isku dayayaan inay isdilaan haddaba isbitaalada waxa buux dhaafiyay oo la keenayaa gabdho yaryar oo daayar ah oo kamid ahaa gabdhihii jaamacadaha dhigan jiray gabadh dhakhtarad ah oo lagu magacaabo Amal ayaa sheegtay 170 wicitaan oo gargaar ah in 2 maalmood gudahood ay soo gaadheen markii lagu dhawaaqay in haweenka laga joojiyay jaamacadaha haddaba gabdhaha daada yar ee dhigan jiray jaamacadaha markii jaamacadaha laga joojiyay niyad jab weyn ayay la kulmeen haddaba gabdhaha maxaad kula talin lahayd asxaabtayda qaaliga fikradiina noogu reeba komitiga hoose aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin waanigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh